السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soomaaliya dhamaantii waa salaamay. Dad badan baa waxa iga soo codsadeen inankaygii xanuunsanaya Masco iga cunay berig dhaweed ka soo warramo. Horta inanka waladan yahay alxamdulillah rabbil caalamiin. Waxaanu jiraa ariga Itoobiya. Arigaas uu jiraa oo ka helay dad u dhaama kuwii xuquuqda ku lahaa. Amxara u dhaanta buu ka helay alxamdulillah rabbil caalamiin. Dadyoga ku nool Soomaaliland ee caafimaadka u soo doonta. Kuwa caafimaadka u soo doontana halkan baaq dheer baan uga dirayaa. Qof kasta oo dhag laga qabto ha aadin meel caafimaad oo Soomaaliland ku taal ha aadin ama ha noqoto kuwa dawladda ama kuwa shacabka ha noqoto dhammaantood ha aadina waa talada aan bixinayo ee xagga caafimaadka ku saabsan sababtoo ah waxaan soo arkay wax badan oo aan ka warrami doono oo wallaahi oo bilaahi oo tallahi wax badan oo aan ka warrami doono ilaahu waan ubadkayga waayaa baan soo arkay waxaan soo arkay dad ilaa halkaa galowda iyo ilaa halkaa alaabta ka sarreysa sidaa loo kala jeexay waad muddo mara la kala jeexay oo Hargeysa laga soo qaaday hadda ma garad oo 5 bilood la haystay oo isku uray qofkaas wuu isku uray ma maqash dad inta la kala jeexay uray baa la igu keenay halkii aan joognay Itoobiya arda sababa wallaahi billaahi tallaahi kaygii madaxu isna daandaanka intaan ilaaway ayaan waxaan ka sii naxay oo ka sii warwaray war dadka heermiiga aan hadli karayn ee waxay wateen laga shubtay wallaahi waan murugooda haddaan arrintaas soo hada qaado laakiin Soomaaliya waxaan yoogaysiinayaa ilmihii waladan yahay alxamdulillah rabbil caalamiin ducada igu soo booba alxamdulillah rabbil caalamiin wasaaradda caafimaadka Soomaaliland iyo dhakhtarkii weynaa iyo hawshiisii nidaamkii kamaan harin bal waxaan saystidi 7 neef aariyo u soo iibsaariyaan halkan ku ogaa aad qarash uga dhigatid oo dabadna haddii maxkamad cadaaladeed ma jirtee oo meeshan waxa haysto korneela horta meesha haysta meesha tan maxaa halkan laga qayliyaa laascaanood iyo meeshan war meesha bela ilaahay dhiga iyo waxaan laga hadli karayn qofkii hadla ama intaas la duminaya ama meel baa lagu amuugaya haddar galabta markaan inta yiraahdo ama waa amuuganahay ama waa la duminaya haddad ilkahayga qaar weydaan haddar waan qabaaye waa la iga ridiyo ogaada wixii helay iyo waxa weeye halkii aan caafimaadka u soo doontay ee dibadda la iga dhigay Soomaali Maxamed miyaad aragteen qof mas'uul sheeganayo Soomaaliland sheeganayo yiri sidee saas u dhacday miyaad aragtay kuwii dadweynaha loogu dhiibay waxoodii dhicaankoodii loogu dhiibay ee goobahoodii caafimaadka loogu dhiibay miyaad aragteen ee laga eriyay ee banaanka laga saaray miyaad aragteen wax ka hadlayo mas'uuliyiina horta miyaad aragteen dadkaad weydiinaya waa maya arrin adag lagu ma arag mid kalena waxa weeye ayaan darro haysataa dadka heer Soomaaliland oo caafimaadka ka haysta deegaanadan waxa weeye Soomaaliland dadka ku nool ka gees waa dad wanaagsan oo waxa weeye maamulku u hoggaansan laakiin wadan dadkii waxa ku dumay qamar baa ku dumay dam ilaahi hortii qamar baa ku dumay ilaahi baana ka saaraya ilaahay oo meeshaad ka keentay ku cilaada caasa wajallaahi wasaaradda caafimaad iyo waxa weeye cadaaladda ka shaqeysa kuwa cadaaladda isku sheega wallahi baana u jirin oo billahi u jirin oo tallaahi u jirin waa magacyaal dadka la dhibay ee xaqoodii lagu dhibay way ka hadli lahaayeen waxa jirta horta ka hor dhici maayee aan burco imaado haddii ilaahay nafta igu simaan caawa afka la dumin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh